Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa kulan la qaatay xubnaha guddiga qabanqaabada shirweynaha dib u heshiisiinta Galmudug kuwa oo ka soo laabtay socdaal ay ku soo mareen deegaanada Galmudug. Kulanka ayaa looga hadlay dardargelinta qorshaha dib u heshiisiinta Galmudug iyo kamir dhalinta shirweynaha Dhuusamareeb ka furmaya ee la isugu keenayo dhammaan beelaha Galmudug si la isugu diyaariyo dhismaha Galmudug loo dhan yahay. Guddiga ayaa Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda uga warbixiyay natiijadii ka soo baxday kulamadii ay la qaateen iyo fariimihii ay gaarsiiyeen bulshada deegaanada Xeraale, Huurshe, Balanballe, Cabudwaaq, Gaalkacyo iyo Cadaado kuwaas oo ay dhammaan kala hadleen sidii looga wada shaqayn lahaa ka qaybgalka shirweynaha dib u heshiisiinta Galmudug ee ka furmaya magaalada Dhuusamareeb. Caawa marka waxaan warbixin kala qaadanay Ra'iisul Wasaaraha Mudane Xasan Cali Khayre iyo Sheekh Shaakir oo ah gudoomiyaha xukuumadda Galmudug ayaan caawa la kulanay. Waxaan siinay warbixintii iyo waxyaabaha aan soo aragnay. Waxaan u sheegnay tabashooyinka dadka meelaha kala jooga oo ay tabanayeen markaan la kulanay. Waxaan u sheegnay dadka reer Galmudug meel kasta ay joogaanba inay noosh cadeeyeen inay diyaar u yihiin inay ka soo qayb galaan shirka ka dhici doona Dhuusamareeb. Tabashooyinka ugu muhiimsan ay qabeen inay ahayd arrimaha amniga inay hubiyaan inay meesha ay tahay meel aamin oo la isugu imaan karo ayay noo sheegeen. Waxay noo garantiireen muxuu ahaa labaduba waxay noo garantiireen Sheekh Shaakir iyo Prime Minister waxay noo garantiireen amniga magaaladan inuu noqdo amni la isku halay karo noqonayo. saas ay noo sheegeen. Waxa kale oo noo sheegay Sheekh Shaakir in magaalada dadka jooga ay abaabuleen oo dadku ay gudihii degi lahaayeen iyo si loo soo dhaweey lahaa iyo taabasho weyn ee magaalada ka socoto oo dadku ma taqaana marxabaysiinteedu ay diyaar yihiin. saas ayuu noo sheegay. annagana waxaan ku boorinay in ugu hambalyeynay hawsha meesha ay soo gaarsiiyeen ayaguna aad iyo aad ugu farxeen shaqada soo qaban. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa guddiga faray inay laba jibaaraan dadaalada ay ku gudanayaan waajibaadkooda ka saaran shirweynaha dib u heshiisiinta si loo gaaro hadafka guud ah in la helo Galmudug loo dhan yahay oo u adeegta bulshada reer Galmudug kana qayb qaadato horumarka iyo qarannimada ummadda Soomaaliyeed taasoo ku imaanaysa wada tashi iyo dib u heshiisiin loo qabanayo dhammaan beelaha Galmudug daga. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Dhuusamareeb.